السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم عن دعوة الكسر دوادا وركسم نيوز تي في وقضبة وركات قضاء دونتنا وحقيبك برلمانka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay ansixiyeen xeerka xuquuqinta siyaasiyiinta dawladda. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in haweenka kaalin lixaad leh ay ka qaadan doonaan siyaasadda Soomaaliland. Wasaaradda Howlaha Guud ee Soomaaliland ayaa soo bandhigtay naqshadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta waxay meel mariyeen hindisa sharciyeedka la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaana hortagay xubno uu qayb ka ahaa wasiirka cadaaladda ee dawladda federaalka Soomaaliya. Musharax madaxweyne Khaliif Ciise Mudan ayaa kulan la qaatay waxgarad ka soo jeeda gobolka Nugaal waxaana uu kula kulmay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. wasiirka cadaaladda ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho kaga qayb galay bandhig ay soo qaban qaabiyeen taliska ciidanka asluubta ee dawladda federaalka Soomaaliya. waxgarad kulan ku yeeshay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa siyaabo kala duwan waxay uga hadleen dilal siyaabo kala duwan ugu dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa doorka ku daawan doontaan u diyaar garooba. xildhibaan naaeegiyo culuq yaro weyda codsigii bulshada raaca oo waxay inoo doortaa. Puntland waa dal khayraadkiisu badan yahay, waxa uu leeyahay xeeb aad u dheer oo ka kooban dhinaca badda cas badweynta Hindiya. waxaa mamnuuc ah in si sharci darro ah looga kalluumaysto ama loo jariifo badda hantida qaran u ah Soomaaliya. waxaan ognahay inay jiraan shirkado fara badan oo ku howlan siday khayraadka uga goran lahaayeen badaheena inagu cayrka ah. waa sharci darro in si aan sharciga waafaqsanayn badaheena loo xaalufiyo oo laga kalluumaysto. waxaan ku dadaalaynaa inaan ilaalino hantida ummadda Soomaaliyeed. musuqmaasuqu waa aafo qaran. meel alla meesha musuqmaasuq ka jiraahi waa meelaan nabad lahayn, waa meelaan amni lahayn, waa meelaan dhaqaalo lahayn, waa meelaan horumar lahayn. hantida qaranka ama hantida ummadda oo in yari ay gacanta ku dhigtahay waxay keenaysaa ummaddu inay amni weydo, inay nolol weydo, inay mustaqbal weydo. malaayiin doolar oo ummadda Soomaaliyeed ay lahayd ayaa loogu tagrifalay si khaas ah oo ku dhacday gacanta dad aan xaq u lahayn. waxay ahayd in dakhliga dalka loo adeegsado sidii bulshada loogu adeegi lahaa. askarigu hadduu xaqiisa waayo, macallinku hadduu xaqiisa waayo, kalkaaliyaha caafimaadku hadduu xaqiisa waayo, waxaynu waayaynaa nolosheenna. musuqmaasuqu waa cadowga koobaad ee ummadi leedahay, waa cadowga koobaad ee Puntland leedahay. waxaan ka shaqaynayaa inaan ka hortago ama la dagaalamo musuqmaasuqa iyadoo aan u samaynayno maxkamad gaar ah oo looga hortago oo dadka dambiyada lagu hayo oo lagu ciqaabo. cadaaladdu waa furaha nolosha. kulligeen waxaan u baahanahay cadaalad. cadaaladdu waa in loo siman yahay si isleeg dadka oo dhan. Soomaaliya waxay ku burburtay cadaalad la'aan. ummadeennu waxay ku kala irdhowday oo qaaradaha adduunka ugu qaybsantay cadaalad la'aan. meelan cadaalad ka jirinin nolol kama jirto. qof kasta wuxuu u baahan yahay garsoor caadil ah oo xuquuqdiisa uu ku heli karo. markaas qabiil uma baahna, jifo uma baahna, koox gaar oo ilaalisa uma baahna. amnigu waa furaha nolosha. meelaan amni ka jirinin diini kama jirto, nolol kama jirto, horumar kama jiro. waxaa loo baahan yahay dhammaanteen inaan amniga ka wada shaqayno. amnigu ma aha qofka qoriga wata, amnigu ma aha askariga muuqda. amnigu waa gabadha, waa wiilka, waa dhalinyarada, waa waaweynka, waa hooyada, waa dhallaanka, waa ardayga, waa shaqaalaha. dhammaanteen waxaa laga rabaa inaan isku garabsanno sidaan amniga u ilaalin lahayn. dadka amniga sida gaarka uga shaqeeya oo ciidamada amniga booliis hadday noqon lahaayeen, baarista hadday noqon lahaayeen, difaaca xuduudaha hadday noqon lahaayeen, xil weyn baa ina ka saaran inay xuquuqdooda helaan. kuwii dhintay
ilmahooda inay xaq helaan kuwii dhaawacmay daaweyn wanaagsan iyo nolol kariima inay helaan xilka amnigu dhammaan waa na saaran yahay amni meelaan lahayni nolol ma leh mustaqbal ma leh horumar ma leh diin ma leh cibaado ma leh aan ka wada shaqayno dhammaanteen sidaan amniga u ilaalin lahayn nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu naamray inaan ku ducaysano ilaahay amni iyo iimaan inuu na siiyo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay ansixiyeen xeerka xuquuqsiinta siyaasiyiinta dowladda kalfadhigii afaraad kulankiisii soddonaad ee xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa hindisa sharciyeedka horyaala golaha shacabka waxa uu ahaa wax ka beddelka mashruuca xuquuqda siyaasiyiinta dowladda kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaana codgeliyey wax ka beddelka mashruuca xuquuqsiinta siyaasiyiinta dowladda sida uu ka dhawaajinayo gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaa diiday hal xildhibaan waxaana ka aamusay 2 sidaa awgeed xeerkan sidaas ayuu sax ku yahay waana ansaxsan shirka annaga maanta intaasuu noogu xiran yahay kulanka annaga aad iyo aad u mahadsantihiin intaasi kadib xubno ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxay mooshin ka dhana heshiisyada is-afgaradka ah ee dowladaha shisheeye waxay u gudbiyeen guddoonka golaha shacabka waxaana ay tilmaameen in baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya habraaciisa la marsiin doono xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir oo ka tirsanaa xubnihii mooshinkan keenay ayaa warbaahinta u sheegay inay doonayaan in heshiisyada is-afgaradka ah ee madaxda dowladda ay la galeen dowladaha Itoobiya iyo Eritrea la horkeeno baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mooshin aan qornay oo aan rabnay in laga doodo xiriirada dibadda iyo heshiisyada dowladdeenu la soo gasho ama afgaradyada ay la gaarto dowladaha kale ama kuwa jaara ha noqdaan ama qaar kale ha noqdaan mooshinkaas su'aalaha nalaga weydiiyey saaka saxaafaddu naga weydiisay weli waa mooshin aan la horkeenin golaha laakiin aanu ku heshiinay in sabtida laga wada hadlo marka ma garan karno meesha aad ka hesheen wararka iyo sida ay u gashay website-yada laakiin su'aalihii maadaama ay nagu bateen in saxaafaddu mid noogu timi oo ay su'aala naga weydiiso mooshinka waxaanu rabnaa inaan idinla wadaagno mooshinkaasi inuu jiro sabtidana aan idin xaqiijino in sabtidana la raaci doono la marin doono habraaci rasmiga ahaa ee goluhu uu mooshinada ku qaban jiray waxaa jira waa ogtihiin waxaa jira warar sheegaya oo ila wareedyo muhiima ka yimi oo sheegaya inay Soomaaliya soo gashay heshiis saddex geesooda oo ay qayb ka yihiin dawladda Itoobiya iyo Eritrea heshiiskaasi walaac ummadda Soomaaliyeed ku abuuray walaacyada ummadda Soomaaliyeed ku abuuray waxaa ka mid ah in dawladda gobolka ay nagula taalee walaalaheena Djibouti heshiiskaas aanu aaminsanahay in lagu goodoomiyey oo aanay qayb ka ahayn arrintaa waxaan rabnaa inaan dareenkayaga cabirno oo aan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno oo aan u sheegnay inaan ummadda Soomaaliyeed raalli ka noqon doonin heshiis gobol oo walaalaheena Djibouti ay ka maqan yihiin waxa kaloo aynu garawsanay oo hadda warar ilad wareedyo muhiim ah aanu ka helay in mooshinkaasi uu baritaarayo dawlad walaalaheena Djibouti ka haysata dhul iyo dadba marka waxaan u aragnaa inay qalad tahay ummadda reer Djibouti oo ay ogeydeen halgankii ay u soo mareen in dawladnimada Soomaaliyeed dib loo soo celiyo oo ay dawladdeenu noqoto dawlad mar labaad cagaheeda isku taagtay in loogu abaalguday inaynu ka hadli kari weyno ama aynu qayb ka noqono heshiisyo looga gol leeyahay in lagu go'doomiyo oo looga hiiliyo dalalkii ay geeska isku hayeen ama dalkii ay geeska isku hayeen ee muranku ka dhaxeeyay xasan kahyesom news tv muqdisho waxgarad kulan ku yeeshay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka hadleen dilal siyaabo kala duwan ugu dhacay Muqdisho waxaana ay baaq u direen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqeen in wax laga qabto falalka dilalka qorsheysan ee loo geysanayo waxgarad ay sheegeen inay ka soo jeedaan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir
warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga cabdiraxmaan maxamed cabdi waabere. kulankani muqdisho ay ku yeesheen odayaasha waxgaradka nabadoonnada iyo culimaadudiinka ku dhaqan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa kulankooda waxay kaga hadleen dilal saacadihii ugu dambeeyay ka dhacay degmooyinka Kaxda iyo Daynile oo lagu geystay dad shacab ah. odayaashii waxgaradkii nabadoonnada ee kulankaasi ka qayb galay oo halkaasi hadallo ka jeediyay ayaa arintani waxay si gaar ah ugu eedeeyeen taliyaha ciidanka booliska degmada Kaxda iyo ciidamadiisa oo ay sheegeen inay ka dambeeyaan dilalka dadkaasi loo geystay. waxayna ugu baaqeen odayaashani mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya in arrintan ay wax ka qabtaan isla markaana sharciga la waafajiyo shakhsiyaadkii dilalkani ka dambeeyay. shirkan jaraa'id aan kaga hadlayno wuxuu u qaybsan yahay 3 qaybood. dacwo aan ka dacwoonayno saldhigga biliiska taliyihiisa iyo ciidankiisa dhibaato ay u geysteen degmadan Kaxda. cabasho aanu u gudbinayno dawladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir iyo ummadda Soomaaliyeed oo gaarsiinayno iyo dacwo ilaahay aan uga dacwoonayno dhibaatada dadkaas ay noo geysteen. waxaan dawladda u sheegaynaa annaga waxaa noo yimid ciidan dan gaara leh aan ciidan amni sugida ahayn ciidan dawladeed aan ahayn taliyaha saldhigga degmada iyo ciidan uu wato oo dan gaara kala degmada Kaxda baa noo yimid wuu nagu soo duulay haddaan nahay degmada Kaxda dadka deegaanka u ah wuu nagu soo duulay dil buu geystay kufsi buu geystay dhac buu geystay wax cadaan oo mashhuur oo suuqa yaala weeyay. waxaan hadda yaana maartay aan xusuusnahay 5 raga mise waa 6 midkood oo bilahan qariibka ah dhexdooda dhintay oo ragga yaana maartay dawladdu ay tidhi amni suga ay dileen oo markhaatigeeda yaana maartay la hayo. marka waxa yaana calaamatu su'aal ah dawladdu dadkan ay soo dirsatay ma dadka shacabkeen nabadda ku jooga laaya miyay yidhaahdeen oo amniga yaana maartay ay haystaan ka qaaday miyay yidhaahdeen mise waa wax yaana duf ku baxay oo iyagu maartay dulli oo yaana dadka nabadda ka qaadaya. mid ka mid ah raggii la dilay oo ka mid ah darawalada gaadiidka ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho xaaskiisa iyo sidoo kale gabar la dhalatay wiilka lagu dilay degmada Daynile ee gobolka Banaadir oo labadooda warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka hadleen siday u arkaan dilalkaasi loo geystay labadaas ruux iyagoona dhanka kale ugu baaqay dawladda Soomaaliya in sharciga ay waafajiyaan shakhsiyaadka arrimahaasi ku lug lahaa. anigoo ah Faadime Axmed oo Cali wiilkii xalay degmada Kaxda ku geeriyooday ayaan xaaskiisii ahay. ilmahayga waxa ugu weyn 6 jir 3 jir baa ku xigo 2 mataano oo 2 jir ah ku xigo haddana walacaan ahay. waxaan rabaa ninkii dhibaatada ii keenay in dawladda waxaan ka codsanayaa ninkii dhibaatada igu keenay ee ninkayga miskiinka ah ee ii xamaala ee bariiska ii raadiya dulmi cad ku dilayna gacanta ma fadlan waxaan ka codsanayna gacanta loo soo galiyo. wiilasha horta waa labadaba wada walaalay ahaayeen labadeena garab ay ahaayeen. wiilkan hadda say xaaskiisa idin sheegtay asoo subaxii shaqo tagaa xaq daro lagu dilay waxaana dilay dad ciidamada dharka diriiska ku labisan. marka waxaan ka codsanayaa wiilka kalena wiil walaalkeen uu ahaa wuu baxay waa la wacaa la dhahay lambar laga soo wacay ma garan karo cid wacday waxaa lagu dilay tabeelaha soo meedkiisa yaalaan noo soo sheegay. kaas laga soo gudub waan sabarnay waan aasanay. wiilkan maskiinka ahaa ilmihiisa subaxii badarka u doontay oo xaq dar waxaan heleen dad ciidamada dharka diriiska booliiska u labisan ayaa dilaa la dhahay. marka su'aasha meesha taashay waxay tahay korontadana way maqneed. wiilka markii meedkiisa guriga la keenay korontada way imaatay. marka meesha waxay ka taalaafisno koronto degmo saldhig wixii oo dhan markaa fiirisid waxaad moodaa inay soo ogyihiin. aniga kaliya ma saari kara dambiga dadka korontada iskale inta loo tagaa amar lagu sii karaa damiya. taliyaha saldhigga Kaxda
marka loo wacay oo loo sheegay oo kaalay ninkii waxa dilay soo qabala dhahay in meesha ku keen la cadaalad soo hordhigi lahaa asiga ayaa fakay muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacayay dilal qorsheysan oo loo geysanayay dadka u shaqeeya dawladda Soomaaliya iyo dad rayidaan waxba galabsan balse dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in xilligan ay ka go'an tahay sugidda amniga magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Waaberi, Somnews, Muqdisho. madaxweynaha Somaliland ayaa tilmaamay in kaalin laxaad leh ay ka qaadan doonaan siyaasadda Somaliland haweenka ku nool deegaanada iyo degmooyin ka tirsan Somaliland. warkan waxaa soo diray wariyahayaga Maxamed Amiin Xuseen. shirweynahani oo ahaa mid ay haweenka Somaliland ay ku soo bandhigayeen xuquuqda ay leeyihiin haweenku ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, qaar ka mid ah golaha wasiirada, ururada haweenka iyo boqolaal ka mid ah haweenweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa. shirkaasi waxa ay furay oo halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha haweenka Marwahinda Jaamac Gaani. madashan maanta waxay tahay ujeedadeedu wax weeyaan waa laba shay. marka koobaad inay haweenku muujiyaan cududooda iyo kaalinta ay kaga jiraan Somaliland iyo waxa ay yihiin. mar labaadka waa inay si hufan oo daahfuran oo aan wax dhimaan lahayn u dhaqsadaan iyagoo tirinaya waxqabadkooda ilaa maantii 1960kii Somaliland ay xornimada qaadatay. maaha maanta oo la bilaabi maayo xornimadii dambe ee gooniisutaaga ee waxay ahaayeen habluhu kuwa ku adeegaya iyaga oo mustacmaradii Ingiriiska warka u kala qaadaya ragga mujaahidiinta ee markaa halgamaya iyo kuwa kale oo salada ku guraya waraaqaha dabadeedna labada xad ula kala tallaabaya. ayaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay ururada haweenka. hawshan maanta oo dad badan isweydiinayaan talo maxaa ka dambeeya haddaan isyara ku taalo shirka waxaa la yidhaahdaa horumarinta haweenweynaha Somaliland. inaan kula garab galno inaan sawirada maalin walba Facebooka la soo geliyo ee xogta ku wada barbaryaacayaan hawlihiina ku barbaryaacaan baalasha ku bulshada waxaan aragnay safarkaaga qiimaha lahaa ee bari ku tagtay intaasoo gaari oo wadatay inan meel gacan sidaa kaloo gaari ka soo saaraysa maanaan arag. waxaad wadatay rag madaxweyne guud baanu leenahay, mutacalimiin baanu leenahay, siyaasiyiintayadii baa halkan fadhiya kuwii kula soo dagaalamay ku soo dagaalamay garabkaaga ahaa cidina kama muuqato dowladda. waxaa halkaasi asaguna ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed. markaati waxa ka maanta goobtan madaxweynuhu fadhiya waxa uu yimi inuu idin dhageysto, waxa uu yimi in maxaan ku raadayay arrintiina uu arko maanka yagana kama maqna annaga kale colka yagana qolada maxaan ku raadayay madeganayaasha ama nihiine tani maalin walba wuxuu waagu ugu baryay wuxuu gobolku ugu dhacay iyo qof waliba wuxuu qabtay waa laga warhayaayo haweenkana waa laga warhayaa. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo halkaasi ka soo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa asagoona halkaasi ka sheegay in wixii cabasho ay haweenku u soo jeediyaan uu qaadanayo 24 saacadood ama 3 cishaba 3 dacwadood 3 channel 3 qof oo adag baa idin dacwado oo marwaba dhirbaax dhigteeda ku haysta. تكوبات هندا يشك باندره أو لبضوا أفتهميهين أي أرور بيهرتاجر هرت وأنا كذا بالري حتى ما تبي تجمع قتل طلبات بتشوفته وح أريد أدور كهذا السنة مركا أرور والبدري في بالي وتقول لو هقول أفتهمات يعني تيجي تكلنا وحوي تيرو إيران تيرو دلايو نختاره هو asbitaalka ka shaqeysan dhakhtarka Hargeysa ayaa 24 saacadood dhibaatooyinka maba qadeeyaba marka soo fariisan miiska ugu haysata waxaan ay moogtaa abo dumarka maxaa soo loo galaya gowday ugu haysaa yaro waa advocate halkan ay taagan quraacdii qadada kama cuni karo
dhakhtarada ay nafta ilaahay bay keentay habeen walba wax dhacay haysta dumarka wax ku dhaca in dhakhtarka hargeysa ka dhaca waardiisa saddexaadna waa hooyaday oo nool oo haweenku u hadasha oo markaa u tagaba saddexdaa mawjood baa igu furane waxbaa nin wax moogo wax loo sheegay hayga dhigina oo saa ila hadlaysaan aan ila hadlayna dhagaha ii fiiqa dhagaha anuu ka hadhi maayo dagaalka waa ila wadaya laakiin wuxuu u baahan yahay kambayn xooga oo xildhibaanada shakhsi loola doodo si loo helo codun kala gudbo golaha wakiilada waxaan isleeyahay golaha wakiilada waa la badhaafin karaa laakiin waxaa taagan labadii statekii guursi halkaa xitaa baartii farta qaylinaysa kuma jirto waa rag meydhan shirkani ay soo qabanqaabiyeen haweenweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ahaa shir aan noociisa hore loo arag isla marhaantaasina ah shir ay haweenka Soomaaliland ay ku doonayaan sidii ay uga muuqan lahaayeen talada dalka waa Maxamed Xuseen Ibraahim Zam News TV magaalada Hargeysa kulan qada sharaf ah oo ay ka qayb galeen waxa garad siyaasiyiin iyo xuqaal ayaa lagu qabtay degmada Goldogob ee gobolka Mudug wakan waxa soo diray wariyahayaga Muumin Jaamac Ciise Alajmal kulan qada sharaf ah oo ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo aqoon-yahanka degmada Goldogob ka oo ay ujeedadiisu ahayd wada tashi ayaa waxa uu si habsami looga qabsoomay magaalada Goldogob markii uu soo gabagaboobay kulanka ayaa waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah salaadiintii ka qayb gashay munaasabada waxa ayna warbaahinta u cadeeyeen inay walaac ka muujinayaan qaabka loo maamulay doorashada kursiga baarlamaanka dowladda Puntland ay ku leedahay degmada Goldogob waxayna ku tilmaameen arrin aan laga talagalin wadadii saxda ahaydna aan loo marin awalba nin baa qaadan lahaa laakiin aan kolba waxaan ila xun sida loo maamulay waxay ballantu ahayd odayaashu inay isaga yimaadaan ka tashadaan bay ahayd kursigaas ciddii ay u gartaanna ay siiyaan waxa weeye may noqon odayaashii barbar baa laga maray cid baa maamushay arrintaas cid kastoo og iyo cid kastoo maqashay iyo cid kastoo way u taallaa inaad abtigaan isa sagoontiro oo haddii ilaahay leeyahayna u qaadanay wixii haddeer anigu inay dhammaadeen maba aqaanba waxaan u qabay meesha wixii la doonayay inay weli meesha joogaan baa u qabaaya anigu goor maaragta laga falaxashay iyo meel la geeyey maba uguda waxaan qabaa sidii aan waxu doonaynay maamulka xubin keliya kuma aanu lahayn 22 baanu lahay 22kii labadii baa laga hayay 20kiina waa goobay labadii laftigeediina haddee anigu in dadkii hore hayay iyo dadka la hayay ma aqaan marka haddee waxa aynu goobaynin sidii aynu ka maqan yihiin waxaan kaaga mahad celinaynaa xilqaanka aad markii hore isku soo xilqaantayna waa kaaga mahad celinaynaa waxaanu ku garab istaagnay nagamaad lihid waxaad noo haysid baanu raadinayna insha allahu dadka haddana aynu la joogno oo ummadda la joogno habaari mayno nahareefa laakiin darasho ilaahay xaggiisa ilaahay ha naga sii adduunka iyo aakhiraba ilaahu naga sii rabbiyo nolosha ilaah waa nagu ceebay midda aakhiro iyo midda adduunka midna ilaah waa nagu ceebay kor allahaynu ka yeero adigana haatan waa kuu ducaynaynaayo waxaan kugu ducaynaynaa meelaad joogtidba ilaahay kora kaa yeero meelaad joogtidba intaas waa duco inta kale bashiir doorashadu noo dhigay uu nagu soo dhaweeyey ilaahay weynaayo isagaba waa ku mahadinaynaa waxa weeye waa bilad fiican dadkoo dhan laabtay u samaynaysa tolkii halganahayey iyo kuwii kaloo maqlada waa kula jeclaa haddii weli hawadaadii sidaad u qabtay bay u sii koraysaa xafladda ilaahay baa mahad leh waxaan mahad labaad celinhayaa titoorka noogu yeeray xafladda tan
hadalkiisuna waxaa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii soo galkaaga ogaa siibaxaaga ha ogaa weeye kursigaas iyo xafladii iyo hawshii aan wada wadnay waa la isku ogaa taasna mid ku ammaanan ma jiro. ugu dambeyn Dr. Bashiir Warsame ayaa odayaasha uga mahadceliyay sida wanaagsan ay heeganka ugu yihiin shaqadooda. runtii taasoo ujeedadeedu ay ahayd laba qodob oo kaliya oo wax saddex ay aysan jirin. qodobka koowaad oo ahaa mahadcelin inaan idin mahadceliyo muddo badan ayaad shaqayseen oo aan wada shaqaynay oo aan meelo badan soo wada marnay oo aan hawlo badan soo wada jirnay arrintaas aad iyo aad baan ehelka sharafta leh kalsoonidii shalay ay siiyeen oo ay igu tixgeliyeen oo ay igu aamineen masiirkooda iyo mustaqbalkooda aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa. arrintaasina ma noqon doonto insha Allah tacaala mid la helmaami doono taariikhduna insha Allah tacaala way xusi doontaa wanaagii badnaa ee aad gasheen iyo kalsoonidii aad muujiseen. waxaan u mahadcelinayaa bulshada qaybaheeda kala duwan iyo tolka ay matalaan rag iyo dumar saqiir iyo kabiir ay siiyeen codkoodii aad baan ayagana ugu mahadcelinayaa. Muhammad Jaamac Ciise Lajmal warbaahinta Somali News magaalada Galdoog. ururada haweenka ee ka jira gobolka Baay oo kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo ayaa waxa ay tilmaameen inay muhiim tahay in shacabka ku nool gobolkaasi ay ka qayb qaataan ammaanka. warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Salaad Maxamed Khayre Salaad Soomaali. kulan ay ku yeesheen ururada haweenka ee gobolka Baay iyo kan degmada Baydhabo ayaa sheegay in ay muhiim tahay in ay ka qayb qaataan haweenka ammaanka iyo xasiloonida gobolka Baay. dhanka kale haweenka ayaa baaq waxa ay u direen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Baydhabo iyaga oo ugu baaqay in ay nabadgelyada ay ka qayb qaataan. salaanka baad way danaska qoynana qaabti una maray nabad ku shaqeeylayna amniga maarayse oo ku shaqeeylayna hadii una reer koonfur galbeed maamulku una tamay raayse sugahayn ilaahay bay wasaneyn maamul keer qabo dadkan ka degaan alla neeshaan. salaanku baad wali iska qoynayeen barnaamij wacyigelin ee oo bulshada Baydhabo may la raay fadaana inay u madaasayti oo aan sheegno wala jar iyo waaqaga madaasayti lu roog iyo qaabka oo aan shaqeey fadhi wali ogtiina ha may la raay shacabka koonfur galbeed inay wali may la raay doorashadii iyo landeer xillisha waqti ku dhimanyi wala muhiim ah horta isdhaqgalka bulshada kale madil ah tan waa kuma dheer hadda Baydhabo tuma xaafado dadkan ma ku shaqooyaan geesiye lanko jirinyi lanko uu ko walnaadi ko kala walnaadi ho antanin isku way waraysadeen waran isagana haray diriskan sahay haray meedo wala kala wala leeyahay faa'iido badan oo qaadan aftiyaba in iskooyo ku shireys bini dariska warsade ko fadama ogaada si oo jiliisa oo ayna oo madinta ko hotel kiin sheego oo iskooyo naftiyaba wala isdhaqgalka bulshada ku badata ilaahay ma hadin horta in shaqeeyna ilaahay caafimaadna si oo inaseen bani aadin warmana sheego oo si ma hadda isku leh. Salaad Maxamed Salaad Soomaali Som News Muqdisho. wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland ayaa soo bandhigtay naqshadda dhismaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. warkan waxaa soo diray wariyahayaga Mukhtaar Cabdi Jaamac. howlaha guud gaadiidka iyo guriyeenta oo kaashanaysa dawladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa maanta magaalada Laascaanood ku soo bandhigay qorshaha naqshadeynta cusub ee degmada Laascaanood kaasi oo loogu talagalay muddada sanadka 30 sanadood ee soo socda. waxaa munaasabadaasi lagu soo bandhigay ka soo qaybgalay odayaasha degmada Laascaanood qaybaha kala duwan ee bulshada waxgarad maamulka heer gobol iyo heer degmo xogayaha dawladda hoose ee degmada Laascaanood iyo sidoo kale maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Maxamed ayaa ka hadlay qorshaha naqshadeynta degmada Laascaanood iyo doorkooda ka dowlad hoose ahaan. wasaaradda howlaha guud iyo injineeradeeda intii ay ku hawlanaayeen ee wali ay ku hawlan yihiin ee habeen iyo maalin bay u soo jeedaan sidii ay u habeen lahaayeen u naqshadeyn lahaayeen degsiimada magaalada Laascaanood. hawshani waa master baleenkii magaalada Laascaanood muddo 30 sano ay ku shaqeyn lahayd waxa kamid ah waxyaalaha la qabanayo saad la socotaan magaaladeena meel walba jiingad baa isku goysay buush barkad suuli dhulkii biyo marayeen iyo dhulkii nalku marayay iyo dhulkii dhirta lagu beerayay intiiba jiingad baa ku go'an qofku gurigiisu xaq u leeyahay wixii wada degan waa la banaynayaa wixii dooxa degan waa la banaynayaa.
gudoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda qorshaha nashqadeynta dhulka Laascaanood inta muhiimadda baan u gudbay aynu isla qaadano sidii aynu u hirgelin lahayn faa'iidadu inoo leeyahay wanaageena ugu jira dantu waxay tahay in isla garano inta iyagaan u deynaya sharaxaadiis taasoo dhan waxaynu ku higsan karnaa kagana gudbi karnaa maamul iyo ummad wada socota ee aan kala socon isku duuban waxaan uga gudbayaa waxa ugu horeeya waa nabadgelyada oo waxa la isee xeegana xeego u noqotaa ilkana uu noqon loo xagtaa ilkana uu nabad galaan tuuraalaha ka tegina shacabkana waxa la wixii dantiisa ku jirto u dhaga nuglaada waxaan kaloo leeyahay innaga waxa inoo haraya haddii masar badan laynoo sameeyo nolosheenii uu yahay yaa la siyaasadayn inaynu maanta isugu nimaadno wax danteenna ah waxaan filayaa danta caamka ahi way ka qiimo badan tahay danta khaaska ah haddii aan la helin dan caam ah danta khaaskaana lama helo wax walba oo nolosha bini'aadamka ku saabsani waxa ay ku xidhan yihiin in la helo danta caamka ah waxa weeye waan soo dhaweynaynaa town balaynka iyo masar balaynka waan soo dhaweynaynaa town balaynka magaaladu ina ducaalow wasiir wuxuu khalday 60kii injineer ka socday wasaaradda hawlaha guud iyo sidoo kale wasiirka hawlaha guud Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa ku dheeraaday qorshaha nashqadeynta iyo muhiimadda ay u leedahay degmada Laascaanood qaybtan marka hore ee magaalada waxaan haday hore u samaysantay waxa weeyaan waxa quraan ku bedeli karnaa waxa weeye wadooyinka inta tuula inta xaafadooda ay tahay halkan maabkan waxa weeye inta markii la sameeyay master balaanka meelaha khaldan ee uu taabtay line waa ka buuxa iyo meeshii gurigii khad qabsadayba ama wada qabsatayba halkan isagoo ballaaran ugu jira waxa kaliya oo ka sharxaya dib ugu noqonayaan u jeeday imika halkan aan u kacay sheego waxay yidhaahdeen bahalka wuxuu eegyahay solar qofkii uu sheeganayo marka hore waa inuu sharciya oo aa sharciyaysa marka labaadna waa inaad dan guud dhul ah oo 100% ah aad ku wareejisaa shacabka ilaahay ee magaalada degan ee leh Mukhtaar Cabdi Jaamac wararka Somali News TV Laascaanood Kenya Airways ayaa waxa ay tilmaantay in duulimaadadii tooska ahaa ee Muqdisho ay ku imaanaysay dib u dhac oo ku yimid warkan waxa faahfaahinaysa wariyahayaga Maryan Xuseen Jibriil gudoomiyaha fulinta ee shirkadda Kenya Airways Sebastian Makoza ayaa sheegay in ay joojinayaan qorshihii duulimaadka tooska ahaa ee kala kooshi jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi war qoraal ah oo soo saaray wuxuu ku sheegay in ilaa iyo muddo ay hakinayaan duulimaadyadaasi kadib markii ay soo wajaheen dib u dhac ku aadan sidii loo heli lahaa baahiyaha farsamo oo dheeraad ah oo dhinacyada duulimaadka ah gudoomiyaha fulinta ee shirkadda Kenya Airways Sebastian wuxuu sheegay in aysan sameyn doonin duulimaadyada tooska ah ee Nairobi Muqdisho ilaa amar dambe oo dheeraad ah shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways oo ay leedahay dawladda Kenya waxa ay horay u shaacisay in ay duulimaadyadaasi bilaabi doonto 15 bishii November ee la soo dhaafay diyaaradaha nooceedu uu yahay Bamdred ayaa la qorsheynayaa in loo adeegsado duuliyadaha Kenya Airways ay kala kooshi lahayd garoomada caalamiga ah ee Aadan Cadde iyo Jomo Kenyatta iyadoo qiimaha tigidhka ee halka duulimaad ee Muqdisho iyo Nairobi uu qiimihiisu noqonayo $403 dib u dhiska qorshaha duulimaadyada ee shirkadda Kenya Airways ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay dalalka Djibouti, Burundi, South Sudan ka gaabsadeen qorshaha ay shirkadda Kenya Airways ku doonayso in diyaaradaha nooca Bamdred duulimaadyada ka bilaabi doonta caasimadaha wadankaasi gudoomiyaha fulinta ee shirkadda Kenya Airways Sebastian oo dhawaan khudbad ka jeediyay baarlamaanka Kenya ayaa wuxuu sheegay in ay sababta siyaasadeed ka dambeyso diidmada ay qaar ka mid ah dalalka bariga Afrika ka mamnuuceen dalalkooda duulimaadyada Kenya Airways Maryan Xuseen Jibriil Som News TV magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa deeq raashin waxa uu gaarsiiyay dad danyar oo ku nool oo gobolkaas warkan waxa soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Xamaar barasaabka gobolka Togdheer Xamsan Maxamed Cabdi ayaa saaka waxa uu deeq raashin guddoonsiiyay
qaar ka mid ah beelaha la haybso ee degan gudaha magaalada Burco gaar ahaan beelaha Gabooye deeqda raashinka oo dhameyd 1,000 qoys ayaa waxa ka soo qayb galay madax dhaqameedka kala duwan ee beelahaasi ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedka beelahaasi iyo sidoo kale suldaanka guud ee beelaha Birmaal waxaana hadaladoodii ka mid ah mahad waxa iska leh guddiga gobolka gudoomiyaha gobolka iyo howlwadeennadiisa aad iyo aad ayay hawsha horta uga howlgaleen madaxweynuhu noo magacaabay oo uu nagu reebay waanu na siiyey bishii u horreysay kunkeedii wuuna guddoonsiiyey annaguna waxaanu rajaynaynaa madaxweyne aad iyo aad baanu kugu ducaynay maanta ayaanu bishu aysan tahayna aanu gacanta ku dhignay kunkii u horreeyey madaxweynaha qaranku waa mahadsanyey gudoomiyaha gobolku waa mahadsanyey waxa aanu guddoomaynaa midana madaxweyne raashinkii aad nagu ballamisay gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi annaka oo 4 beelood ah oo Tumaalo Madhibaan Muuse iyo Beeshii Ibrood inta baan iskugu jirno aad iyo aad ayaanu ilaahay baa horta mahadle aad iyo aadna waanu kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aad nagu ballan qaaday ee aad noogana ajiibtay aanuna helay wixii aad nagu ballan qaaday madaxweyne wixii aad noo idmatay ee aad nagu ballan qaaday nagu ballisay gudoomiyaha waanu ka haynaa waa kuwa halkaa taagan 2,000 bay haayeenoo 1,000 baan halkaa taagan kun kalena insha Allah bishu markay dhamaato ayuu insha Allah aanu qaadi doonaa sida heedna dadkii waan gaarsiinanaa hawshan iyada ana kunna waa la wareegnay kunka kalena aniga barasaabku si wanaagsan buu noola macaamilo bisha dambe iminka bilaamatay ayaa aanu qaadanaynaa samadii iyo aradkan idinka soo ducaynay barasaabka hadduu yahay madaxweynaha hadduu yahay hore marka labaad madaxweynaha waxaanu mahad ballaaran uga celinaynaa deeqda ballaaran ee dadka baahan ee dadkiisa madaxweynaha uu yahay uu soo gaarsiiyey geesta kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi isagoona sheegay in deeqdan ay tahay mid ka timi madaxweynaha Soomaaliland isla markaasina beelaha Gabooye ay madaxweynaha ka codsadeen in ay qayb ka noqdaan beelaha degan Soomaaliland barasaabka arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa halkan ku wareejinaya beelaha Gabooye oo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi safarkiisii dhawaan uu ku yimi gobolka Togdheer oo runtii ay u soo gudbiyeen baahi jirta oo dadkii barakacayaasha ahaa ee beeshan ka tirsanaa baahi jirta sidaa daraaddeed madaxweynuhu wuxuu si naxariis leh uga jawaabay codsigaas isaga oo ballan qaaday inuu 2,000 oo qoys raashin ah 2 bilood kala siin doono maanta halkan waxaan ku wareejinayaa 1,000 qoys ee bisha Disembar loogu talagalay in la siiyo beelahaasoo ka kooban 4 madax sida ay u soo qaybsadeenna qoraal loogu soo gudbiyey boqaashooda iyo salaadiintooduba runtii waan uga mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland naxariista uu u fidiyey dadkiisa waxaanan beeshana ka codsanayaa in sidaas si la mid ah idinkuna aad gaarsiisaan dadkii nuglaa ee beesha ka mid ahaa ee aad madaxweynaha uga codsateen inuu wax soo siiyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xasan Camaar telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Burco culimada magaalada Buuhoodle ayaa waxa ay bilaabeen dhismaha masjid laga hirgelinayo xaafadda xerta ee magaalada Buuhoodle warkan waxaa soo diray wariyahayaga Cali Dhagjar culimada iyo waxgaradka deegaanka Buuhoodle ayaa ku baaqay in laga soo qayb galo dhismaha masaajid aad u weyn oo maanta laga dhigay xarunta xerta ee magaalada Buuhoodle munaasabadii masaajidka lagu dhigay waxa ka qayb galay culimada deegaankaasi iyo waxgaradka deegaanka waxayna ku baaqeen laga soo qayb galo dhismaha masaajidkani halkani waa xaruntii Buuhoodle deegaanada Buuhoodle waxaanu ka dhisaynaa masaajid baanu dhisaynaa masaajid horena ma ilahayn waxaanu u sheegaynaa walaalada iyo muslimiinta masaajidkaas halkaas masaajid hore ma ahayn xaruntaasi masaajidkii baanu bilownay saaka wixii qof waliba karaankiisa in la nagala qayb qaato oo masaajidka la dhiso islaamkaanu u sheegaynaa muslimiinta meelay joogtaba masaajidkaasi waa masaajid saaka la bilaabay waa xarunta Buuhoodle waad aragtaan saydu shaqadu u socoto waxaanu u sheegaynaa muslimiinta in la nagala qayb qaato walaal masaajidka fadlaayisha masaajidkana waad garanaysaan ninna loo sheegi maayo
nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man banaa masjidan bana allaahu masjidan fi ljanna ilaahay baa wuxuu ku leeyahay aayad qur'aana qofka beydka ilaahay camira ama wax kula baxa beyd baa ilaahay jannada uga sameeyaa waxaana beydka ilaahay ama dhisa ama camira qof ilaahay iyo nebigiisaba rumeeyey ayaa camira ama wax ku darsada nebigu wuxuu yidhi oo abaa hureyre ka wariyey radiallaahu canhuye man banaa masjidan qofka masjid ilaahay oo beyd ilaahay dhisa ama bineeya ama wax ku darsada banallaahu filjannati beytan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam beyd baa ilaahay uga bineeyaa jannada dhexdeeda qofka hal dhagax ku darsada masaajidka ama lowdh ciida ku darsada ama lowdh dhagaxa ku darsada ama xabad sibira ku darsada waa sadaqatuljaariya weeye inta beydkaa lagu tukanayo oo beydkaasi dhisan yahay sadaqaa u socota sadaqada jaariyaduna waa ashyaada qaaliga ahee mar walba qofka ajri baa ilaahay qof kastoo soo gala oo masaajidkaa ku tukada ilaahay wuxuu uga qorayaa ajir iyo xasanaad baa ilaahay uga qorayaa qof kasta oo khayr doonaya maanta waxaanu ka doonaynaa dariiqadii rabiiciya buuhoodle xaruntii weynayd masaajidka laga dhisayo baahi masaajidka ay ka muuqato inuu hantidiisa kula bixiyo kii waqfaya kii waalidiintiisa wax u waqfaya kii allahumma salli calaa sayidina maxamed naftiisa wax u waqfaya kii muslina kii tijaara qofkii hantile ayaanu ka doonaynaa waxaa khayrka aanu ugu yaboohaynaa oo hadday wacdiga iyagu gaadho ay farducayn ku tahay wixii waxaysta qofkii waxaysta hadduu maqlo waraadayada oo wax la bixi karo waa fursad qaaliya oo maanta uu haysto weyn haddii uu khayr baxsanayana waa fursad u bannaan maanta waxaan ugu sheegaynaa dadka islaamka ah khaasatan dadka wixii ahlu sunnaya inay masaajidka dhismihiisa nagala qayb galaan baan u sheegaynaa dal iyo dibad wixii jooga wixii qaadiriya iyo wixii rabiiciya dal iyo dibad mid kastaba joogeene iyo wixii ahlu sunna wal jamaaca inay nagala qayb galaan masaajidka dhismihiisa waxaana masaajidka dhismihiisa lagu soo hagaajinayaa qofkii sadaqa la baxaya qofkii khayr doonaya uu ka soo qayb galo beydka ilaahay oo meel masaajid hor aan lahayn sidaa wadaadku idiin sheegay waxaad u imanaysaa xaafad yar oo 20 guri ka dhisan tahay 4 masaajid ka dhisan tahay oo aan laba qof ku tukanayn meel markaa u baahan baahida masaajidka looga qabo baa ka khayr badan in wax lagu bixiyo qofka khayrkiisa uu ku bixiyo masaajid hore ma lahayn waa naga ka shaqaynayna waa xarun diiman markii horeba haatan masaajidkii baanu ka bilownay qof kasta oo islaam ah iyo qof kasta oo ahlu sunna wal jamaaca iyo qof kasta oo qaadiriya iyo qof kasta oo rabiiciya waxaan u sheegaynaa beydka ilaahay inay nagala qayb galaan dhismihiisa oo degdega qof kasta wuxuu la bixi karo xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa waxa ay meel mariyeen hindisa sharciyeedka la dagaalanka musuqmaasuqa warkan waxaa soo koobaya wariyahayaga Salaad Maxamed Khayre Salaad Soomaali golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay horay u soo ansixiyeen golaha shacabka kadib markii uu golahu aqalka sare uu kulan ku yeeshay maanta kalfadhigii afraad kulankiisii 9aad xarunta golaha aqalka sare ee magaalada Muqdisho ajantaha shirkuna waxa uu ahaa aqrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi kulanka waxaa goob joog ahaa 31 senator gudoomiyaha guddiga garsoorka arrimaha diinta iyo awqaafta xuquuqul insaanka haweenka iyo caruurta Samsam Ibrahim Ali ayaa ka hor akhrisay senatarada golaha aqalka sare iyada oo dul istaagtay talooyinka lagu darayo aqrinta koobaad iyo aqrinta labaad la dagaalanka musuqmaasuqa ee heer dowlad goboleed iyo ereyga heer federaal qodobka 5aad iyada oo dib u habeyn lagu sameeyay qodobka 6aad iyada oo dib u habeyn lagu sameeyay qodobka 7aad iyada oo lagu soo kordhiyay farqadiisa 15aad iyo 16aad qodobka 8aad iyada oo dib u habeyn lagu sameeyay qodobka 10aad
farqadiisa koowaad xarafkiisa xa iyo qa dib u habeen ayaa lagu sameeyey qodobka 11aad waxaa lagu soo kordhiyey xarafka ja qodobka 12aad waxaa lagu soo kordhiyey farqada 12aad qodobka 15aad farqadiisa labaad iyo saddexaad dib u habeen ayaa lagu sameeyey waxaana lagu soo kordhiyey farqada afaraad qodobka 22aad waxaa lagu soo kordhiyey farqada saddexaad guddoonka golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa soo jeediyay in cod la geliyo hindisa sharciyeedkan inta kadib waxa ay goluhu cod geliyeen hindisa sharciyeedkan dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana ansixiyay dhammaan senatarada soo xaadiray kulanka oo ahaa 31 senatar Salaad Maxamed Salaad Soomaali Somnews Muqdisho dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay waxa ay sheegtay in safaarad ay ka furan doonto Soomaaliya 27 sano kadib warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Cabdullaahi Gacma dowladda Mareykanka ayaa dib u furaysa safaaradeedii Soomaaliya kadib muddo 28 sano oo ay safaaraddu shaqayn xaaladda Soomaaliya awgeed sidaas waxaa ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka dhacdadan taariikhiga ah waxay ka turjumaysaa horumarka Soomaaliya ay sameysay sanadihii u dambeeyay tallaabo kale oo horey loogu qaaday hagaajinta xiriirka tan iyo markii Mareykanku aqoonsaday dowladda federaalka ee Soomaaliya sanadkii 2013 ayay tiri haweeney afyaan u ah wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku wuxuu xiray safaaradiisa Muqdisho uu ku lahaa bishii January sanadkii 1990 markii xilka laga tuuray madaxweynihii Soomaaliya dalkana uu burbur lugaha la galay 2015 ayuu Mareykanku si toos ah u soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya uu la lahaa waxaana howlgalkiisa diblomaasiyaddu uu ka shaqeynayay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhawaan waxa Soomaaliya u soo magacaabay Danjire Donald Yamamoto afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxa ay sheegtay in Yamamoto iyo kooxda la shaqeynaysa ay wada shaqeyn buuxda la yeelan doonaan dowladda Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha Mareykanku kula dagaalamo kooxda argagixisada duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Soomaaliya ka geestaan ayaa keentay inay hoos u dhac ku yimaado weerarada al-shabaab ee Soomaaliya sidoo kale Mareykanku waxa uu gudaha Soomaaliya ku bartilmaameedsaday ururka Daesh oo hadda dalka ka wada isballaarin Cabdullaahi Gacmo Somnews TV Muqdisho warkii waad kala socoteen Somnews TV halka ayuu nooga gaay inta war noocan oo kale aan ku kulmi doono sidaasina wadgalyo manala kusoo dhawaada barnaamijkeena cunto karinta maanta waxaa inii soo diyaarisay aniga oo ah Nasteexan Maxamed maanta waxaan sameynaynaa maraqa idaha oo aad u macaan maraqaas macaankiisa waxaa noo suurtageliyay maraq digaaga jumbo